dowladda waddankan Koonfur Afrika ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay waday dadaalo la iskugu soo dhaweynayo dadka muwaadiniinta ah iyo qaxootiga ka kala yimid wadamada kale ee qaaradda Afrika iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka aan dhamaadka lahayn ee lagu hayo dadka qaxootiga ku ah waddankan Koonfur Afrika. kulan uu qaban qaabiye ka ahaa afhayeenka baarlamaanka gobolkani Western Cape ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Worcester ee isla gobolkani. shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadaha Afrikaanka ah, madax ka socotay dowladda, ururada bulshada iyo hay'adaha amniga. kulankaasi dhinaca Soomaalida waxa ugu qayb galay Mahad Cumar Cabdi oo ah isku xiraha jaaliyadaha Soomaalida iyo dowladda Koonfur Afrika. kadib markii uu shirkaasi soo dhamaaday ayaa waxa uu Mahad TV-ga Universal ugu warbixiyay shirkaasi waxa uu ku saabsanaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaal kulanku si wanaagsan buu dhacay, arrimo guuli laga lahayn waa la gaaray. guuluna waxay u badnaayeen sida mataqaanaa dadka ajnabiga ah iyo dadka South Afrikaanka isku dhaxgelayeen, wax wada qabsan lahaayeen, dhibaatooyinka soo noqnoqdana xal loo gaaro. walaal waxa ka soo qayb galay horta guddi ka yimid oo aan ka tirsanahay oo ka yimid Cape Town, guddi kale oo ka yimid mataqaanaa tuulo kale oo la yiraahdo Kailija, waxa ku jiray guddi ka yimid qaxootiga iyo guddi ka socday police commissionerka iyo ururada siyaasiyiinta waddanka tirsan oo dhan iyo qaybta oo hogaaminayo Sheikh Ishaw oo ah Speaker of the Parliament. sidoo kale afhayeenka baarlamaanka gobolkani Western Cape Sheikh Shahid Eso ayaa isagana TV-ga Universal ugu warbixiyay kulanka iyo wixii la isla afgartay. Yeah, to be honest, it's very important that we listen to communities. waa muhiim bulshada inaan dhageysano oo aan isdul taagno dhibaatooyinka jira si aan u xalino waxyaabaha ay tabanayaan innaga oo dhan dawlad iyo baarlamaankuba. hawshannu maanta waxay ahayd ururinta waxyaabaha ay tabanayaan bulshadani. xiriiradeenuna waxa ay noqonayaan kuwa isdaba jooga. dhaqaaqyadan ay wado dowladda Koonfur Afrika ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli laga cabsi qabo in ay dib u bilaabmaan falalkii qaxootiga ceebka ahaa. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town. dhaqaaqyadan ay wado dowladda Koonfur Afrika ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli laga cabsi qabo in ay dib u bilaabmaan falalkii qaxootiga ceebka ahaa. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.